cali jeyte cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ayaa wax laga xumaado waxa uu ku tilmaamay in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku duulaan maamulka Jubbaland. Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan cali jeyte cismaan ayaa waxa uu sheegay in waqtigan ee munaasab aysan ahayn in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya loo adeegsado dana gaar ah isla markaana dhibaato fara badan ee shacabka Soomaaliyeed ay ku noqonayso hadii dana gaar ah loo adeegsado ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida uu sheegay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Mr. cali jeyte ayaa sidoo kale waxa uu si cad u sheegay in haatan loo baahan yahay in dagaal midaysan lagu qaado ururka al-shabaab fariisimaha kala duwan ee dalka ay kaga sugan yihiin isagoona tilmaamay in markasta loo baahan yahay in dagaalka al-shabaab uu noqdo mid dhab ah sida uu tilmaamay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan cali jeyte cismaan ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in tala kasto laga wada tashto isla markaana aanan wax waliba si degdeg ah aan loo weerarin sida uu sheegay gudoomiyihii hore ee maamulkaasi. Hadalka cali jeyte ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee Jubbaland oo dagaal uu ku dhaxmaray deegaanka Raaskambooni halkaasi oo askar fara badan ay ku geeriyootay. Inkastoo madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood aysan ka hadlin dagaalka dhaxmaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland, haddana waxaa cali jeyte hadalkiisa uu noqonayaa mid saameyn fara badan ku dhex yeelanaya dowladda federaalka Soomaaliya. cali jeyte ayaa waxaa horay uu abaabulay dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab iyadoona deegaano fara badan oo hoostaga gobolka Hiiraan uu dagaal uu ka waday maalmihii ugu dambeeyay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamza ayaa waxay hore u tilmaameen in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta lagu soo dhigi doono madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dagaal baan kula jiro dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.